السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوداش قيمها قدرين تمدون الصوتوس كهودن وقداوري ومركلة إذا عدي سيكسي لانتا في الصومالي مقالة وطبعات آلا بنقريستان صدح يسقاشن دبي حال مالك استوى حدا سوكرا نحيق استوديو أنه داوتان بقان كلنا هاي يوتيوب كا يعني هو فيسبوك أما تويتر كا داوديال maanta aan joognaa magaalada Ottawa waxaana marti runtii magaalada Ottawa ku habeenkii xalay xaflad aad u qiimo sareysay lagu qabtay magaalada Ottawa xafladaas oo ujeedkeedu ahaa daahfurka warshada Border Emails daqiiqda magaalada Hargeysa laga yagleelay 2017 October taasi oo iyadu daqiiqda ka sameyn doonta dalka Soomaaliya haddaba habeenkii xalay ayaa magaalada Ottawa ay ahayd daahfurkeedii waxa runtii dadweyne fara badan oo Soomaaliyeed reer Soomaaliland Djibouti ayaa ka soo qayb galay si ay runtii u ogaadaan warshadan daqiiqda maalgashina runtii ay u sameystaan oo warshadan ay qayb ka noqdaan runtii mas'uuliyiin fara badan oo warshada ka socda ayaa magaalada Ottawa yimid oo lagu soo dhaweeyay oo horkaayo maareeyaha guud ee shirkadda Border Emails Mustafa Ibrahim Aadan oo garabkayga bidix fadhiya sidoo kalena Shucayb oo ah gudoomiyaha wakiilka Canada u fadhiya shirkadda Border Emails oo isaguna runtii magaalada Toronto ka soo boqolay waxaan horta marka hore aan soo dhaweynaya mikrofoonka Mustafa Ibrahim Aadan oo isagu garabkayga bidix fadhiya inaan marka hore ku soo dhaweeyo telefishinka iyo idaacadaba aan ku soo dhawo Mustafa مصطفى واحد كنت بعد السفر مقالة أوتوا حبينك حاليا حفلة أدو هير سريسة يالين ولا مخبطات رنتي أدو صوب النجزين قيمة وشد يوحى رنتي فائدة ولا ده حبا ومدة هير سومال لنا كسوغان تلكي مدام مرشد تلكي الجسمي مع حدا بعد رنتي سفر كينا انتم أوتوا تمادين انتم مقالة وسيك اعتمسان يرنتي وحيابات لا ده هاي ري أوتوا ويرنتي كفائدة كران مرشد باللوشي بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waad mahadsantahay Maxamed waxaan oo tawaymanay in dadka degan in la tuso maalgashiga horta wuxuu yahay iyo shirkadan loo soo bandhigo su'aalahoogana laga jawaabo in badan ba hawadan ku jirnay marka magaaladii ragii shirkadda gudoomiyaha kale aanu inta badan deganayn muddo muxuu ahaa ilaa 1990 خاصة بينه ونقطة كينا نصوب الرجنو وجيتنا وحويانو إن فكر كمبودير الميلز تذكر الجالسية وتودجن نوم عناية وهاي تهاي إن شاء الله نقف كده نيني هاي نقص قبل وهي مركها ماريها قوية وحتى شركة بورder Emails وقت جيل وجود دورتي ماريها وقت جبهي إن حلقة إن قدومي عبد الرحمن الشيخ أحمد إيدي واحد ماريها ما اللي يدي مالكشكا إن وحيدنا أساس كي شركة إن قف كستبه حلكي إن أغونتيسي أيام مدام حق هاي حق accounting حق سنة سنة هاي إن أنت بدلنا قف كستبه حول بلودي با أو هوها إن ملها أو أغونتيسا كو بيجن مركا وبلو يدوي مكا لا وصلنا لحاجة اللي نشوفها وهي warshadan bilowgii runtii saa nagu maqalaa dalka Canada ayaa runtii laga yaqaan bilowgeedu ka bilaabmay wadamo kale oo la wadaaga Canada oo runtii mas'uuliyiintu ka bilaabmay tabse Canada bad ka bilowdan asaaskii ugu horeeyay asaaskii ugu horeeyay waa runtii waxa weeyaan Canada gaar ahaan magaalada Toronto shirkadda Canada ayay ka registraysan tahay muxuu ahaa xafiis ay downtown Toronto ay ku leedahay waxay leedahay meelaha in 6 wakiil oo muxuu ahaa Shucayb oo gudoomiye u yahay Canada 14 magaalo oo muxuu ahaa Europe iyo Carabta iyo wadankii iyo North America ayaanu tagnay mid kasta xaflad lagu soo bandhigayo hawshan iyo maalgashigan aanu iibinayno insha Allahna ku xidhidii inay Ottawa noqoto ayaanu jeclay وسوناكسن runtii maalgashi ayaad in raadinaysan dadku maalgashaan warshada Border Emails intee in leeg bad u qoondaysan dadku inay noqdaan dadka maalgashanaya tire intee leeg ku koobnaadaan su'aal fiican tirada imka saamilada shirkaddu 400 bay dhaafeen anoo qiyaasteeda isticmaalaya maadaama maalgashigan qaabilsanahay waxaan isleeyahay 6 ilaa 650 qof marka ay ku soo dhamaan doonaan لكن سامي وما هم مثل حريو
sharesku waa mid qaaliyoobaya uun xidhitaanka sharesku mid indhow dhici doono maaha insha allah. waa si wanaagsan. runtii ma jirtaa iminka wadamo kale ama aad magaalooyin kale oo Canada ka mid ah ama aad dalalka jaarka Mareykanka kale aad safar ugu tagaysaan oo iyagana aad maalgashi ka rabtaan ummadda Soomaaliyeed ama Soomaaliya ama Djibouti dadka af Soomaaliya ku hadla? su-aal fiican. Mareykanka magaalada Minnesota ayaan tegay in 4 bilood markii laga joogo oo xaggaasi xafladan ku qabanay. inta badan wakiilada Mareykanka waxa weeyaan Seattle iyo Minnesota ay noo joogaan meelaha dadkiinu ay ku badan yihiin, Soomaalidu ku badan yihiin. inta badanna xafladda wakiilka ay dhahda dad badan oo guuxayo doonaya shaqo ayaa meesha jooga imaada. marka talada wakiilka xagga noo fadhiya inta badan qaadana, laakiin Minnesota marka laga tago meelaha kale weli maanu maqal guuxa iyo baahida intaa leeg. waa si wanaagsan. haddii aad naga waranto warshadda ama dad aan fikirka haysan oo ku daawanaya warshadda dhismaheega midkaa ku maraya? waa su-aal fiican. dhismahaygu bartankii baynu ka marayaa. waxaanu isleenahay insha allah 6 bilood ee soo socota xadhiga ka jara. imika dhismuhu labu qaybsan yahay. midi waxa weeyaan xaruntii warshadda iyo bakhaarkii iyo generatorska iyo nidaamkii. qaybta kalena waxa weeyaan warshadii lafteedii iyo Yurub lagu soo sameynayo, wadankii la keenayo oo muxuu la qalabeynayo. marka insha allah 6 bilood gudaheed baan isleenahay xadhiga ka jara. imikana gabagabadii baanu ku jirnaa warshadda. shareskii way dhow yihiin imika 90% baanu lacagtii ama maaliyadii shirkaddu ay u baahnayd. insha allahna inta kale ilahay baana la garab. waa hagaag. waa si wanaagsan. markaan usoo noqono dad fara badan oo Soomaalid afar Soomaali ku hadla wadamada doonaya ka yimaadaan ama ka soo jeedaan runtii raba inay maal gashadaan, shuruudaha aad qofkaasi u baahan yahay maal gashanaya maxay tahay? waa su-aal fiican. waxaanu shareska usoo bandhignay ilaa intii afka Soomaaliga ku hadasha ee geyiga Soomaaliyeed. way jirtaa in reer Somaliland ay u badanayaan maadaama dee dowladda Hargeysa abaarsa laga dhisiyo warshadda. waxyaabaha waxa weeye qofku inuu miyir qabo, inuu 18 jir hukuman yahay, in uu ka dhargo xeroosaadka iyo nidaamka shirkadda. markuu qancana inuu lacagtiisa soo bandhigo, dabadeedna soo diiwaangeliyo xeroosaadkii wixii la siiyo. shahaadada 24 saacadood gudaheed ayaanu ku siinaa. xafiiska Hargeysa waxa weeyaan Mansour Hotel dabaqa 3 mid baanu Toronto ku leenahay. website-kayga ayaa la tegi karaa. wakiil kasta taswiirtiisa iyo telefoonkiisii ayaa ku qoran. wakiilka ku dhowbaad wacaysa, isagaa hawsha dhan ku dhameynaya. waa si wanaagsan. marka qiimaha lacagta qofka laga rabo intee weeyaan? sharkii waxa weeyaan $250 ugu yaraan inta la iibsanayaa. minimum waxa weeyaan 10 share oo noqonaya 2500 oo lacagta Mareykanka. hadduu qofku intaa ka badsanayo waa isagiyo jeebkiisa, laakiin ugu yaraan 2500 weeyaan. dadka qaar baa yidhaahdaa 2 maanu ku noqon karaa, 3 qof 4 qof waa lagu noqon karaa. صح وهاجك واسمنا سن ودمبينتي واحد شهرنا بويديو دد فربضان ورنتي يجو ورشة هراء ومال قشري أو شراء أي رنتي يجو ولا أي فربضان كموجي سان وهذه تجار لك ولا ورشة دينو محيك قد وانتهى ورشة ده كلا دتكم مال قشران أما واحد أوران كرتا دتكم رنتي وحنا عن وحنا ويكقد وانان كرتا مال قشري ورشة ده كلا مال قشري. وسؤال هذا في عنه بلي مهمة. أولا سؤال شاد وصلنا نقطة. dad badan baa shirkada isku dayay, hanti badan ummadda Soomaaliyeed ka ururiyay, maantana waxba lagama hayo. taayadu waxay kaga duwan tahay horta daraasad dheer baanu soo sameynay. bank adduunkay soo martay. haddana xeroosaadkii shirkadda ay ku shaqaynaysay wixii dadka kala kaxaynaya ama wadadii la isla mariyay ayaanu sameynay. xeer ilaalinta Somaliland bay taallaa. sharcigii Canada oo shirkaddu ay ka asaasan tahay taana waanu ku soconnaa. taa marka laga tago waxa maanta jirta dee warshadii oo la taabanayo dhismaheedii socdo 6 bilood gudaheedna xadhigeygii laga jaray. inta badan wuxuun baa la ururiyaa, laakiin wax la arko oo lacagtii ummadda laga urinayo oo dadkii la tuso runtii ma jirto. taasaanu kaga duwannahay. iyo in maanta shirkaddii ay socoto meel ayna ka soo noqonayn oo 90% hantidii ay u baahnayd
hay shirkadii hayso ummadani hayna aamintay dadkii na aaminayna ummad kaloo ku xiran oo na aamintahay kasoo dabayacayaan marka xaggii aaminaadda meel fiican ayaanu kaga jirnaa وهاجك وسوينا سمو حاتري لابا كنا شن بقول قيمها القف كنتي طبعا شيء وكل يوميا هدي قف مركا وقتيات كوسين إنسان قف كي العقد وقصة الإنسان بس السنة كي مسوي كوريا لابا كنا شتها بقول سؤال في عموي ولا فإذا السنة كيس إنه كو قيمين وبقول كي بصدم إن وح ما لنت حالك الشركة اللي قد شروا أيام نقول نسبلوجي سنة كا إن سنة دبريد أيام وحلو إيه فإذا كتمادا كنت جماعة هو فريسان دونا يجا وندين دونا إن الشركة أم بدي بلوج عليها أنتدا أم إن ساملي ذا إن لوقي بيو سيدا يمكو أكت هاي إن شاء الله ساملي ذي لوقي بيو نقطة شرنا إن shares كنا وحويا مت هدوقف كمان تيلا هذا مال كشان أيا تضبط بانوسينا جديد لكن قف كسايس كشاب معها marka dadka qaar baa wax soo dhiga inta kalena 2 goor ama 3 goor bay u bixiyaan marka shirkadu waxay markasta danaysaa dadka inay u jilciso soo gelinteeda iyo maalgashi warshada وسمعنا ودبنتي هنتي قفك هالكيب العاد كوه هجاتينيا بس حتى ويب سايت كوجري هتو بها انفورميشن إنه هنتي كوجادو معلومات إرادة. ويب سايت بانولان هاي borderymills.com وحكس حاجة سيكو تطلع وكيلة ذي تصوير تودي مقاعدو ذي تلفونات ذي حاجة سيكو يلان حفيز كهرجيسة منصور هوتيل دبقة ستحت وأنا كلها هاي تورنتو محو حفيز بانو كلها هاي شعيب أي بدومي وكيلة ذا كندا قارهان تورنتونا مركا وكيلة ذوي بدينين هدو قفكو إسلي حجيبات العقد كوسوش بتاع والسلام بنك يدهب شيل بنك وشركته هاي كل هذا هي business accounts أنك هاسينينا account يدا مركي سوش شوان receipt كون بين السينيان إن لبا صور دحل سوق هوجا إن قفكي يهين مجروري وحيابها يشهد ديو ودير إن شاء الله. وهاجك عاديات بقى كم هاللي وحنو تشعلها هي تدفير فربضان وصوماليات أياكو داونا يا قبل دي قنات كم حاد دتكاسك وصوت جدنا بعد كي تقله. horta dadka shirkadda soo maalgashaday ayaan horta u mahadnaqaya wakiilada shirkadda aan u mahadnaqaya guddiga shirkadda oo maanta dee dhismihii hawsha ku jirna waan u mahadnaqaya dad badan baa hawshan ka soo shaqeeyey ummad badan baana aamintay insha allahna inaanu fulino wixii ayaanu rabnaa inta badanna dadku aaminaad unbaa ka maqan laakiin waxay shirkaddu ummadda tustay in lacag intaa leeyahay dhex taalo haddii la isku keeno gacanta la isqabsadna warshad kasta la dhisi karo tanna insha allah bilowgii ha noqoto kuwa kalena ay ka dambeeyaan aad baan u mahadsantahay xaalada aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee runtii wareysiga aan nooga aqbashay daawadayaal wax sidoo kale san hore u sheegay waxaa garabkayga midig fadhiya wakiilka shirkadda u fadhiya dalan Canada borderymills runtii Shucayb oo magaalada Toronto ka soo boqolay isagoo maantana ku sugan magaalada Ottawa Shucayb marka hore ku soo dhawow TV-ga iyo idaacadda waan dhowahay Maxamed iyo dhammaan bahda radioga Ottawa waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan bahda saxaafadda dadweynaha reer Ottawa oo isugu jira rag iyo dumar waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wakiilkeena inoo jooga magaalada Ottawa Maxamed Abshir oo isagu si wanaagsan isugu taxaluujiyay sidii ay xalay xafladda shirkadda borderymills ay dadku imanayeen isugu taxaluujiyay intaba waxaan leeyahay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام هذا مرحلة كوسو دوينيا شعيب كنتي واحد كميت هاي وكيلك وفردية دكان كندا شركة borderymills أنتي عن لغو دورة وكيلك واحد كميت هاي دتكي مالك شركة شركة محمدو وهذا الآد وناكسن تورونتو waxaa lagu qabtay xaflad taasoo la qabtay February 12 2018 waxaan ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay xafladda ee lagu casuumay goobjoog baan ahaa madaxdii meesha ka socotay shirkadda iyo hadalladoodii iyo khudbadoodii waan dhageystay dadyoogii meesha fadhiyaan ka mid ahaa aniga iyo dhammaan dad aanu asxaab ahayn oo muxuu ahaa ka soo qayb galay xafladda
hase ahaatee waxaan ku qancay su-aalihii aanu weydiinay maarayaha iyo guddoomiyaha oo isagu xafladda goobjoog ahaa. dabadeetana waxaan garowsaday inaan maalgashto, waxaanan ka mid noqday maalgashayaasha shirkadda, waxaanan ku leeyahay 10 sheer. waag 10 sheer baad ku leedahay. haddaan ku weydiiyo waxyaabihii aad ku dooratay aad naf ahaan shirkadda maalgasho oo maalkaaga geli qodobna ma sheegi kartaa? horta 2 arrimood waan ku doortay. ta koowaad waxa weeyaan shirkaddina waa shirkad laga yeegleelay Canada oo ay magaaladan Toronto laga registereeyay Canada. shuruucdeedii iyo constitutionkeedii iyo qawaaniintii shirkadda lagu aasaasayna aad iyo aad baan u fahmay. teeda kale waxaan darsay 2 nin ee dhalinyarada ah, guddoomiyaha Cabdiraxmaan Sheekh Axmed iyo maarayaha muxuu ahaa Mustafa Ibrahim Aadan. maxamed waxaad ogtahay ninkaad kaba ka taroonaysid kabtiisa la eegaa. markaan qancay oo aan dhan walba eegay waxaan garowsaday inaan ka mid noqdo maalgashayaashaasaan ku aaminay. waa si wanaagsan. marka guddoomiyenimada ma shirkadda kuu doortay mise dadkii maalgashada ee Canada unbaa ka dhex ulo soo doortay adiga? waa su-aal wanaagsan. anigu markii hore ilaa 6 biloodii ugu horreeyay waxaan ka mid ahaa dadka maalgashayaasha. hase ahaatee magacaabidan iminka la ii magacaabay waxay ka timid madaxda sare ee hoggaanka shirkadda uu hormuudka ka yahay guddoomiye Cabdiraxmaan iyo maarayaha muxuu ahaa Mustafa. iyagaana ii magacaabay inaan ahaado wakiilka u fadhiya Canada shirkadda. waa si wanaagsan. Canada maadaama wakiilkeedii tahay iibgeynta inteen in leeg baad iibgeysay shirkadda oo aad runtii maalgashi u soo jiiday? wallaahi maalintii la daahfuray February 11 2018 iyo maanta maxamedo waxaan isleeyahay shirkaddu meel wanaagsan bay maraysaa. markaan ka hadlo qaaradda North America especially Canada markaan ka hadlo waxaan ku sheegay maxamedo xalina aan xafladda ka sheegay dhaqaalaha ugu badan ee soo gasha shirkaddan waxa maalgelinteeda ay ka timid Canada, gaar ahaan magaalada Toronto. marka waxaan isleeyahay reer Toronto waa dadka ugu badan ee shirkaddan maalgashtay. waa si wanaagsan. runtii dad fara badan oo reer Somaliland ayaa degan guud ahaan dalkan Canada iyo ahaanba Soomaali. luqadda af Soomaaliga waa Canada aad ugu badiyay marka la eego dadka runtii community-da kale dalkan degan. sidee maxaad is leedahay runtii ummadaasi Soomaaliyeed afka Soomaaliga ku hadasha shirkaddan runtii u maalgashan karaan ugu dhow ama ugu fududaas leedahay runtii ku hirgeli karta? waa su-aal wanaagsan maxamedow. waxaad ogaan kartaa shirkaddan markaanu dadka aanu wacyigelinta u sameynaynay oo keliya targetkeedu ma ahayn inaynu dadka reer Somaliland inaynu targetka ahayno. hase ahaatee xafladdii xalay ka dhacday Ottawa Holiday Inn San Laurent ku yaala moolka kasoo horjeeda waxay ku tusaysaa jaaliyadii xalay isugu timid inay kasoo jeedeen jaaliyad ka timid Puntland, qaar ka yimid Kilanka Shanaad, qaar Jubbaland ka yimid oo anigu meesha kula kulmay, reer Somaliland, reer Soomaaliya, Djibouti oo iyaguna ka maqneen oo iyaguna si wanaagsan uga soo qayb. taasaa ku tusi kartaa in ay shirkaddu tahay shirkad la wada leeyahay oonan cid gaaraan lahayn. waa si wanaagsan. Shucayb runtii dadka runtii waa Toronto waa runtii maadaama wakiilkii tahay shirkaddan Border Mills. haddii imika aad eegto Canada oo kale runtii reer Somaliland aad bay jecel yihiin u maalgashadaan. iyo runtii ummadda Soomaaliyeed bedelalka ka yimaadeen ama daqada kasoo jeedaan. markaynu maalgashiga ka nimaadno dhinaca maalgelinta ka nimaadno runtii warshaddan Border Mills waxaad tagteen gobollo kamid ah Canada. Ottawa joogtaan, Toronto may ku jirtaa meelo kale oo aad tegaysaan oo fikirkan warshadda aad dadka soo dhaadhicinaysaa? waa su-aal wanaagsan. horta Canada waxa ugu horreysay Toronto oo ahayd February 11 2018. waxaa ku xigtay xafladdii xalay lagu qabtay ama laga yeegleelay magaalada Ottawa. barnaamijkayga in lagu soo food saaran waxaanu ku tala jiraa guddoomiyaha la tashi baanu ka sameynay arrinka. waxaanu ku tala jiraa haddii alla yidhaa Alberta, gobolka Alberta caasimadiisa magaalada Edmonton inaynu daahfurro
wakiil baa inoo jooga Sheekh Ciise jaaliyadii waanu la wada hadalay over the phone hase ahaatee waxa ay noo sheegeen in waqtiga ugu habboon uu noqon karo rabadaanka dabadeed markaa qorshaha iyaga uu inoogu jiraa inaynu tagno Alberta oo aanu ognahay in dadka af Soomaaliya ku hadla ay ku badan yihiin واحد وسمعنا شعب دفر بدن وفي الصومالية كنت أعرف الصومالية والله يستوصف وداونية قلنا لقيسنية قبل دي قلنا نتكلم محا وصوت جدينا أما أتكلم تقلعين وما داسون تقداونس waxaan leeyahay dadweynaha afka Soomaaliya ku hadasha meel kasta oo ay ka soo jeedaan anagoo caawa ku sugan mareehin ila socdo suxufiga weynaa reer Ottawa uu ila joogo Maxamed Yare waxaan dadweynaha sharafta leh ee degan Ottawa iyo nawaaxigeeda afka Soomaaliya ku hadla aan ugu bushaareynaya shirkadan inay tahay shirkad la wada leeyahay ummadda afka Soomaaliya ku hadashana waxaan u sheegayaa in cid kasta oo danaynaysa maalgashi oo danaynaysa in ay dalkii dib ugu noqoto oo ay wax ka qabsato ma aha only kaliya shirkadda laakiin anybody Somalilander ah oo doonaya dalkan inuu maalgeliyo shaqo abuur sameeyo waayo waxaad ogtahay Maxamedow dhaqaalaha Somaliland ama raashinka inta badan waxa weeyaan wuxuu ka yimaadaa dibadda taqriiban 90% dad waxa keena maalqabeena dibadda ka keenaan hase ahaatee labada nin ee dhalinyarada ay maanta hormuudka ka ah shirkadda waxa ay muujiyeen in ay riski ama ay geliyeen sidii ay looga maarmi lahaa daqiiqda dibadda inooga imanaysa oo la sameeyo warshad dalka laga abaabulo daqiiqdiina lagaga kaaftoomo dibadda inooga iman lahayd waxaan ku baraarujinayaa dhammaan dadweynaha in ay yimaadaan wakiil baa inoo jooga Ottawa Maxamed Abshir telefonkiisu waxa weeyaan de kulay suxufiga taa maaragtay idin sheegi doona halkii lagala soo xiriiri lahaa oo nin reer Ottawa ah in Abshir wala wada yaqaana inaad la soo xiriiraan oo aad shirkadii soo maalgashataan وهاجك وسمعنا آديات بنك هاجم هذا اللي شعيب رنتي سدا ونحسن يعني ضغط بشينا ندور سؤالات كويدينو السفر كان عاد كنت من مجال هذا وطوي شركة عاد مالقش يقول دون السنة بودين ميلس أديك يوف ماري هبا مستفى آد بني لو دينو كم هذا اللي داود يال وحاسدا شيء شعيب مجال هذا وطوي على حفيز الشركة كل هذا حفيز كانوا واحد قدومي كأح محمد أبشر أدرس كله حويان 1000 بلفاست وعيديد حوالي كل هاي أي حفيز كيالا تلفون كيس هدي عن السيو مصطفى وحويان 343-542-6636 ومحمد أبشر صدح أفر صدح شان أفر لبا لح صدح لح محمد أبشر أيار لح لدو تاريخ أطوا أنتي معلومات باهم قبل وحن أنتي اللي قادروا ويسولنا على كاميرا مانك وريترونتا ويسولنا السعودية أنتي شعيب يو مصطفى يو أنتي عبد الكريم ويسولنا أنتي وفتي جلس السعودية هذه البرنامج يقول اللي وأنا نقول تدب محلي هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.